iskoorimaad rabshada wata ayaa maanta gelinka hore ka dhacay magaalada laascaanood kaasi oo u dhaxeeya ciidamada boliska gobolka Sool iyo sidoo kale qaar kamid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood. Rabshadahan ayaa ka bilaabmay ka gadaal markii taliyaha qaybta booliska gobolka Sool oo sida la sheegay ku soo eedeeyay mid kamid ah ciidamada boliska magaalada laascaanood ka howlgala inuu ka dambeeyay baxsashada maxaabiis ka baxsatay sida la sheegay saldhigga dhexe ee magaalada laascaanood taasi oo kaliftay in askariga markaas ciidamada baxsasiiyay ay ciidamada boliska oo ka amar qaadanaya taliyaha qaybta dibadii ay ku toogtaan gudaha magaalada laascaanood. haddaba shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa iyaguna qoryahooda soo gurtay isla marhaantaana weerar ku qaaday qaybta boliska gobolka Sool iyo sidoo kale saldhigga dhexe ee magaalada laascaanood. iskoorimaadkan u dhaxeeya shacabka magaalada laascaanood iyo ciidamada boliska ayaa maanta gelinka hore waxa uu ahaa mid magaalada laascaanood laga maqlay dhawaaqa rasaasta qaybihiisa kala duwan oo labada dhinac ay iswadaarsanayaan. inta la ogayay 3 ruux ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ku dhaawacmatay ka gadaal markii ciidamada boliska iyo shacabka isfarasaaraan iyadoona ay indhaha igu qabanayeen qaar kamid ah baabuurta ay ku howlgalaan ciidamada boliska ay shacabku dab qabasiiyay. dadweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa iyaguna kadib waxay boobeen qaybaha kala duwan ee laamaha dawladda ku shaqeyso oo ay kamid yihiin maxkamadda magaalada laascaanood, qaybta booliska gobolka Sool iyo wasaaradda howlaha guud. taliyaha qaybta booliska iyo sidoo kale qaar kamid ah ciidamada boliska oo aan iyagu haybahan ka soo jeedin gobolka Sool ayaa iyagu iskaga baxay guud ahaanba magaalada laascaanood sida jawga guud ee magaalada haatan uu kacsan yahay. haddaba shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa maanta TV-ga caalamiga ay kala sano dareenkooda la dhex qaaday waxay sheegeen ka dhacay shaqo yaab leh dadka laascaanood waxay muujiyeen waxay rabaan khasab ma aha in dawladnimo dad lagu khasbo baalmo waa in dad la laayo shacab oo bulmageeda hay'ado hore waxa la dilay ninkii xildhibaanka dawladda federaalka ayaa lagu dilay maanta nin baa kiil ma dhex lagu dilay waxa uu maleeyahay sidaay meesha wuxuu yimi hawa jaclo ee dhibaato magaalo dhex isku leeso meesha waa dhulkaygii annaga iska leh waa ku dirirayna Soomaaliland waxa meesha kama jiraan annagu dhulkan sharci darro looguma soo socdo jaamacadana jaamacada ka bixi karaan maaha waxaan sheegayaa silaanyo iyo dadkan uu meesha ku hayo lagala bax waxaan aad meesha keentay oo dulqaadan mayno dadkayagi waa la laayay adaa ka mas'uula adaa noo soo diray adna ka biqmayno waxaan nahay xor dhulbahantaana laga yiraahdaa jaalle ka bax meesha waxaan halkan ka dhiganayaa fikirkayga mudaharaadkan maanta kale qaybeedku abaabulay oo dadka kiciyay oo mas'uulka ka ahaa in waxaan magaalada ka dhacaan magaalada ayaan darada haysta waxa weeye barasaabaan gobolkan u dhalan taliya qaybeedaan u dhalan gudoomiye maxkamadaan u dhalan waxaan socdaalaan u dhalan waa gobolkan wuxuu noqday gobol la qabsaday waxaana Soomaaliland haddii gobolka ka bedeli weeyo waxeedaba ay wada raacsato ka baxdo. maanta waxaa ka dhacay magaalada laascaanood waxa weeye dad shacab ah oo ay leysay maamulka Soomaaliland baa laayay anagu adkaysan mayno intii nalaynay inay Soomaaliland ay wixii dadkii la leynayay aanu garan weynay waxa leynaya waa iyada ilaa maanta bilaahada maantaanu aragnay iyagoo layna soo cararaysa markuu ninku geel leeyahay ee geel fara badan leeyahay hashiisa madida la cuno oo dhirwaa cuno oo hashiisa haddii la barooy awrkiisa gurgursaa dhirwaa cuno haddii la barooy yahay tambadisa uu cuno suu cuno iyo dhirwaagu marka dambe geel uu nag buu noqdaa annaga nag bay doonayaan inay naga siiyaan aan arkaynay iyagoo tuuta ay wata ay la dileen ma jirto maanta mayd bay yaalla iyo dhaawac ayaa la wada aragtaan. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan uga hambaleynayaa dhammaan shacabka reer Sool reer laascaanood qadiyada iyo wanaagga iyo jaahilnimada ay ka muujiyeen maanta waxaan ka socon doonin kana socon kuna sii joogi doonin shicibka waan reer laascaanood dooni mayno Soomaaliland ko waxa weeyna naga baxana dhaafa keesiyo barakaatu magaalada laascaanood maanta waxa ka dhacay mudaharaad xoogan oo rabshada wata waxaa sidoo kale weerar xoogan loo geystay xarunta booliska ee magaalada laascaanood saldhigga dhexe waxaa qabsaday bulshadii magaalada waan ku dhimanaya anaa keena marka hore imika anaa diid dad waxay aaminsan yihiin tacsiyadnimo u diiday uma diidin dhulbahantanimo u diiday ma aha markii ugu horeysay ee tan iyo intii Soomaaliland ay soo gashay magaalada laascaanood ay ciidamada boliska iyo shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood sidoo kale soo farasaaraan samahaantaana khasaaro noocan oo kale uu ka dhasho. maxamed axmed jaamac maxamed bidaashi xabitaamiyaha caalamiga ay kalsan TV magaalada laascaanood.